بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد وحين كجرنا إخواني في الله تحانيهني آدابت إسلامك يدغن كصوبا الشرعي إنو تشيديي aynu filayno in ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqiisii aynu ugu dhowaanayno kuna doonayno inaynu alla kaga helno janno kagana badbaadno biidni illaahi tacaala naar iyo cadaabkiisa waxaynu muddo soo akhrinay aadaabta lagula dhaqmayo rabbigeenna jaliilka ah subxaanahu wa tacaala waxaynu wax ka tilmaami doonaa iyadana aadaabta lagula dhaqmayo rasuulkeenna kariimka ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh inaynu aadaabta rasuulka baranno yar iyo weyn qof kasta oo aad tahay meel kasta oo bulshada kaga jirto darajo kasta oo aqoontaada uu yahay inaad barataa waa daruuri waayo waa ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khalqiga ka doortay khalqiga oo dhan ayuu rabbi ka doortay waa fadiilo iyo darajo aada iyo aada u sarreysa khalqiga dhan ee ilaahay abuuray awal iyo aakhir kuwii ugu horeeyay ilaa kuwa ugu dambeeya cadaan iyo madow ayuu rabbi ka xushay nabigu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha astafaa kinaanata min waladi ismaaciil wastafaa quraysha min kinaana wastafaa bani haashima min quraysh wastafaanii min bani haashim sida adduunka ilaahay u kala xushuu sheegayaa aakhirka wuxuu kusoo gebagabeynayaa cidda xulka ah ee khalqiga lagala baxay waa aniga waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay khayr annaas dadka ugu khayrka badan waa nebiga ilaahay u soo diray inuu mugdiga jahliga iyo shirkiga iyo dulumaadka uu inaga saaro oo inoo saaro nuurka iimaanka iyo towxiidka iyo akhlaaqda waa nebiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay mid agteena kaga muhiimsan xataa nafteena waa nebiga laga dhigay jacaylkiisu inuu ka horeeyo cid kasta jacaylkii marka inaynu baranno aadaabta lagula dhaqmayo nabigeena kariimka salawaatu rabbi wasalaamu calayh aadaabta lagula dhaqmayo dhaxalkii uu ka tegay aadaabta lagula dhaqmayo marka lasoo hadal qaado aadaabta lagula dhaqmayo sida loo raacayo waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin inaynu ogaano halka uu sharciga alle ka taagan yahay kadibna aynu ku dhaqanno oo aynu dhowrno oo aynu ilaalino ilaahay bin subxaanahu wa tacaala markaa raalli hashe kaga sugayna adabka koobaad ee runtii dhinac laga mara aan lahayn ee ugu muhiimsan waxa weeye aliimaanu bih in nebiga la rumeeyo in loo rumeeyo rasuul ahaan in loo rumeeyo nebi ahaan in loo rumeeyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dirsaday inuu rabbi leeyahy wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kuma anaan soo dirin inaad tahay naxariis caalamka oo dhan waa alraxmatu lmuhdaah wanicmatu lmustaah waa khayr kastoynu hayno ka ilaahay inoogu soo dhiiba weeye shar kastoo inaga fogaada waa ka bisababihi inagaga fogaaday waa ka sababtiisa ilaahay ku joojiyey cadaabkii addoomaha uu wada camimi jiray ayaa ilaahay joojiyey wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun waa nebiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi haddaan ku soo diray waxaan kuu soo diray inaad kownka oo dhan aad wax ka bedesho sidaa awgeed rumaynta aynu rumaynaynaa dhowr qodob bay ka kooban tahay waxa ugu horeeya inuu yahay rasuulu rabbi alcaalamiin waana tay diidanaayeen dhammaan gaaladii xilligaa noolayd iyo ilaa maanta nooli gaaloo dhan waa tay diidan yihiin qolaba si ay ku diidaba qaar waxay ku diidayeen ma bashar baana loo soo diraya malaha malag bay sugayeen walow jacalnaahu malakan lajacalnaahu walow jacalnaahu malakan lajacalnaahu rajula walalabasnaa calayhim maa yalbisuun qaar waxay ku diidan yihiin maxaa looga dhigay carab qaar waxay ku diidan yihiin muxuu luqadaa u yimi qaar waxay ku diidan yihiin muxuu anaga u noqon waaye qola waxay ku diidan yihiin muu hebel iyo hebel noqdo sidaa awgeed qolaba waxa ku diidanaatee adiga waxaa lagaa rabaa inaad rumayso inuu yahay rasuulu rabbi alcaalamiin weliba inaad rumayso qodobka labaad oo ah in loo diray khalqiga oo dhan ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas bashiiran wanadiira kumaanaan dirin
inaad adduunka oo dhan wax ka bedesho mooyaane qaar aad u bishaarayso iyo qaar aad u digto. kuwa loo bishaaraynaya waa kuwa raacay ee rumeeyey ee u dhaga nuglaaday ee diintiisa qaatay baa loo bishaaraynaya. waxa loogu bishaaraynaya waxay ku farxaan, waxa loogu bishaaraynaya war wanaagsan, ilaahay inuu raalli ka yahay, ilaahay inuu jecel yahay, alla uu soo dhaweynayo, inay cadaab ka badbaadayaan, inay ciqaab dhinac marayaan. waxa loogu bishaaraynaya inay noloshii adduunyo nolol ka wacan gelayaan. waxa loogu bishaaraynaya aakhire iyagoo udhuudhayo dhalaalay imanayaan. waxa loogu bishaaraynaya kitaabkooda midigta looga dhiibayo. waxa loogu bishaaraynaya xawdka nabiga inay ka cabayaan. waxa loogu bishaaraynaya farxad badan oo aan caadi ahayn inay arki doonaan. kuwaas waa kuwa bishaarada xaq u yeesha. qolo kale waxay xaq u yeesheen nadaara, in loo digo, in looga digo cadho alle, in looga digo ciqaab ilaahay, in looga digo naaran talada laa yaslaaha ila alashqa, naal holcaysa oo dhimbiisha yaray tuuraysa ay tahay tarmi inahaa tarmi bishararin kalqasr kaanahu jimaalatun sufr. fooqyo waaweyn iyo awrta ayay laaleeg tahay, dhimbiisha yaray ka duulaysa. maxaad u malaniyadan naarta 70,000 ee hoggaan lagu keenayo, ee hoggaankii walba 70,000 oo malag ay jiidayaan ayaa looga digaya. waxaa looga digayaa rabbi cadhooday oo u cadhooday inta kibirtay ee nebiyada soo diiday ee diinta khilaafay ee ilaahay subxaanahu watacaala qaadan waayey raallihaanshihiisa. marka waa inuu qofku aaminaa inuu rasuul yahay kownka oo dhan loo diray. waayo qaar badan oo gaalo ahi maanta waxay rumaysan yihiin inuu nebi maxamed nebi yahay. maxay gaalo ku noqdeen hadday rumaysan inuu nebi yahay? waxay ku noqdeen, waxay aaminsan yihiin inuu carab loo soo diray keliya. xilli waa nin rasuula, waa la soo diray, wuxuu wadaa waa waxyi, laakiin nama khusayso. carab buu u socdaa, ma noqonaya muslim, mana yeelanaya axkaamta muslimiinta, mana rajaynaya muslimiintu waxay rajaynayaan. waayo ilaa uu rumeeyo qodobka ah in ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray kownka oo dhan, inay risaaladiisu caam tahay saqaleynka oo dhan gaadhaysa. qodobka saddexaad ee la rumeynaya wuxuu yahay annahu khaatamu nabiyiin, nebiyada kii lagu khatimay inuu yahay, oo nebi ka dambeynaya inaanu jirin. subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy maa kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama nabiyiin. nebigu wuxuu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu calayh ana khaatamu nabiyiin laa nabiya bacdi, waxaana kii nebiyada lagu soo afmeeray, nebi iga dambeeyaa ma jiro. riwaayo kale wuxuu leeyahy inahu sayakuunu kadaabuuna 30 wa inahu laa nabiya bacdi. beenaalayaal badan baa soo bixi oo 30 bay gaadhi doonaa nebiyo sheegata, laakiin ogaada in nebi iga dambeeya aanu jirin. waa lagu soo afmeeray. maxaa ka dambeynaya? culimo cilmigii faafisa, alculamaau warasatu lambiyaa. laakiin nebi ka daba imanayaa ma jiro. xataa nebiyullaahi ciise markuu soo dego ma soo degaya isagoo nebigii alla ah, wuxuu soo degaya isagoo qof ummadda nebi maxamed ka mid ah ayuu soo degayaa oo muslimiinta hogaamiya oo howlo badan u qabta. qodobka afraad wuxuu yahay inaad ogaato in ilaahay u soo diray thaqalayn, jin iyo insi oo dhan. qodobka shanaad wuxuu yahay inaad ogaato in ilaahay aad rumayso inaan ilaahay aqbalaynin cibaado aan nebi maxamed sharciyeyn, camal aan diinta ka haysan cudurdaar inaan la aqbalayn, allana loogu dhowaan karin. dariiq kastoo janno loo soo maraa waa xidhan yihi, dariiqa nebi maxamed jeexa mooyaane. halkaa markaa waxaa ka baxaya in qofku hawadiisa iyo dookhiisa uu ku cibaadaysto, siday la tahay inuu ku cibaadaysto, siduu jecel yahay inuu ku cibaadaysto ayaa meesha ka baxaysa. wuxuu noqonayaa addoon loo arrimiyo oo amar qaata oo diin ku xidhan. diintu waxay ogolaatana ogol, waxay diidana diidaan. wuxuu noqonayaa addoon suga amarka ilaahay, amarka rasuulka. wuxuu noqonayaa addoon aan ka hor dhicin. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih. waxaasoo dhan marka laysku soo xoriyo, rumaynta nebigu way qaybo badan tahay. waxaad rumaynaysaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey ashafaacatu alcudma, oo khalqigoo dhani markay nebiyada u tagaan ee ay aada ugu baahan yihiin in la kala xukumo oo cadceedi ku kulaato, oo dhididku ku bato, oo rafaadku ku bato, oo waqtigu dheeraado. nebiyullaahi waxay u tagayaan aadam, way cudur daaranaya, geed baan anugu cunay, ilaahay ma hortegi karo. nebiyullaahi nuux bay u tegayaan, nuuxna wuxuu odhanaya wiil baan ilaahay baryay, halaagmaya, in lay badbaadiyo ilaahay ma hortegi karo. nebiyullaahi ibraahim buu u tegaya, ibraahim wuxuu odhanayaa dhowr arrimood oo sarbeeba oo been la moodi karaan idhi, ilaahay maanta hortegi maaye. nebi muuse u taga,
nebi muuse wuxuu waa kii nin gacantu igaga dhacday aniguna ilaahay hortagi maaye nebi ciise u taga nebi ciisena wuu soo xawilaya wuxuu odhanayaa addoon dembigiisa hore iyo kii dambaba la dhaafay ayaa hawshaa leh u taga markay nebi maxamed u yimaadaan buu odhanaya ana laha waa taydii ilaahay buu u tegayaa carshiguu kuwa sujuudaya rabbi buu ammaanayaa ammaanaanu markaa haynin oo la bari doono waxaa lagu odhanayaa muxamed irfac ra'sak waqul tusmac washfac tushafac madaxaaga kor u qaad dheh waa lagu dhegaysane ergee waa la aqbalaya markaasuu ummadda waa ergeynaya howlaha intaa leeg inaad rumayso in nebigu qabanaya calayhi salaatu wasalaam inaad ogaato jannada qofka koowaadee garaacaya inuu yahay nebi maxamed masuu malagu odhanaya waa ayo iyo waa maxamed bika umirtu an aftax laa aftaxu liaxadin siwaak aduun baa laykaa faray inaanu furo cid kale u furi maayo intaa markaad rumayso waxaad u gudbaysaa waxyaalaha rumaynta xoojiya waxyaalaha abuura inaad ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa aada hore ugu socoto inaad jeclaato nebigaaga waxaa uga horeeya inaad barato taariikh nololeedkii nebiga aad barato nasabkiisa aad barato abtirsiintiisa waxaa dad badan laga yaabaa inay ku sifaysan yihiin wax la yaab leh in isaga haddii la weydiiyo abtirsiintiisa uu wado tobannaan oday iyo tobannaan waalid oo aanu midna waxba ka garanayn ayuu u laqiman faatixada sideeda u akhriyaya nebi maxamed haddaad weydiisana qaar baan labaynayn magaciisa ama hadday labeeyaan aan saddexaynayn waana arrin subxaan allah waa arrin aan fiicnayn waa arrin aan wanaagsanayn waa arrin laga wacan yahay waayo sidee u dhacdaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo la rabay indhahaaga iyo naftaada inaad ka jeclaato inaad nasabkiisiba garan weydo inaad abtirsiintiisa 3-4 oday ka sheegi kari weydo waa qariib waxaa la mida siirada iyo sooyaalkii nololeed nebigu dacwadda halkuu ka waday maka inta uu joogay qaabku diinta u waday gaalo waxay soo kala mareen wixii dhib la gaarsiiyey wixii rafaad soo maray wixii xaalado kala bedbedelan uu soo maray waa inaad taqaano waayo shayga waxaad garan kartaa dhibka loo soo maray markaad akhrido waayihii loo soo maray haddaanad waayaha akhriyinba waxaad moodi doontaa in weligeedba nimcada lagu naaloonayay xaaladuna ay habi ahayd la wa alfu la waa inaad ogaataa in dhib wal iyo qadhaadh walba loo soo maray markaasaad ku dhegaysaa siiradii nebigu waa la yaab marar badanna waynu ka akhrinay casharo badan qof kastana wuu helaya kutubo badanna waa laga alifay meel wal uu raadiyaba uu ka helaya internetka hadduu kale uu ka helaya isagu inuu caajiso ama ay kuba soo dhici weydo fikraddaasi mooyaane hadduu is idhaahdo baro ayaama yasiiru ku baranaya weliba wuxuu u baranaya si daqiiq ah waayo nebiyadii hore akhbaar aad u badan lagama hayo waayo ama muddo hore noolaayeen ama asxaabahoodu aad umay dadaalin ama hadday asxaabtoodu dadaaleenna waqti warkooda kala go-ay warar baa laga hayaa waxoogaya laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam warar tafatiran oo dalab tiran oo meel yar aan xagaldac ka lahayn baa laga haya khusuusiyaadkiisa maryihiisii iyo siduu u socon jiray iyo timihiisii iyo qaabkuu u feedhan jiray iyo guriga markuu soo galo wuxuu qaban jiray waxbaba ma qarsoonaba dhammaan dad buu ilaahay u diray dadkaasaa raadiyey laakiin maya ciddii baran layd miyaanay dhallinyarada ceeb ku ahayn inay yaqaanaan kuwa kubadda cayaara kuwa agtarada ee filimada matala kuwa meelaha isjajabiye ee heesa inay wax badan ka yaqaanaan nebigoodii kariimkaa ee shafaacadiisa ay sugayeen ee ummadiisa ku abtirsanayeen isagana ay waxba ka garan waayaan bal qaar baa su-aalaha la weydiiyo aad tacajabaysa qaar baad is odhanaysaa malaha dal islaamba may joogin waxay garan waayayaan laga yaabo inay mariikh iyo nibton iyo meelo badanna ay ka sheekeeyaan oo ay meerayaasha adduunka mara oo aan waxbaba uga 15 ahayn in ay ka sheekeeyaan inay ka sheekeeyaan laacibiinta kubaddu waxyaalaha saaka ku quraacdeen iyo meelaha ay seexdeen iyo waxay jecel yihiin xaasaskooda iyo caruurahooda inay ka sheekeeyaan waa diin la'aan waa dadnimo xumo inaynu barano nasabkii nebiga iyo siiradiisii waxaa kaloo iyana daruuriya inaynu barano ehelkiisii inaynu barano xaasaskiisii ubadkiisii inaynu barano qaraabadiisii inaynu barano dadka ciddii ugu dhadhoweyd aad bay daruuri u tahay waayo haddaad weydiiso ubadkii uu dhalay in badan bay ka gedmanaysaa
haddaad weydiiso ooriyihiisii in badan bay ka gedmanaysaa hooyadii aabihii dhammaan ciddii ka ag dhoweyd waa inaad barataa waayo waxaa la yaqaanaa cidda aad jeceshahay cidda ka ag dhow oo dhan baad jeclaataa hadday kaa dhab tahay maxabatu nabiyina alkariim salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaad jeclaan wixii ka ag dhowaa oo dhan inta gaalowday ee ilaahay ka fogaatay mooyaane sida abulahab iyo wixii la mid ah ilaahayna subxaanahu watacaala qur-aanku ku sheegay tabat yadaa abi lahabin watab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalat alxatab fii jiidiha xablun min masad cidda ilaahay sidaa u gooyey ee suurad dhan lagu jaray ee lagu sheegay wuxuu ku dambeynayo kaa hay joogto kaa ilaahay dartii waad u colaadinaysa waayo isaga ayaa colaada beeray isaga ayaa colaadiyey nebi maxamed isaga ayaa colaada ka istaagay halka ugu dambeysay laakiin ciddii soo dhaweysay xataa abu aalib gaalnimo ku dhintay gaalnimada waad ku nici laakiin haddana beyj la yaab leh ayuu sameeyey oo ah inuu nebiga difaacay waata keentay in hadhowto aakhiro nebigu u shafaaco qaado ilaahayna u baryo in cadaabka laga khafiifiyo markaasaa laga khafiifinaya markaasa waxaa lagu cadaabayaa cadaab kooban waana ahwanu ahli nnaari cadaaban muxuu ku galabsaday ahlu naarka inuu ugu cadaab fududaado waa difaacidda uu nebi maxamed difaacayey waa maritaankii loo soo mari waayey in wax la yeelo raganimo ayuu u dhashay inanku adeerka u yahay buu ilaalinayay sidaa ogeed walaalayaal way noo soo socotaa casharaday ka mid tahay in la difaaco sunnada nebiga in la difaaco shakhsiyadiisa iyo kuwa caayaya in aflagaadada laga dhowro waa arki doonaa laakiin cid kasta oo nebiga ka agdhow inaad barato waa daruuri waxaa kaloo muhiima inaad barato dacwadii islaamku say ku soo hana qaada maalin bay qof ahayd nebiga keligii loo waxyooday iqra bismi rabbika aladii khalaq maalin buu laba ahaa oo xaaskiisa khadiijo u sheegay maalin buu saddex ahaa saaxiibka abubakar u sheegay 4 5 100 200 10 waa 1,000 saasaa loo wadaya ilaa ay maanta marayso milyaar wa 700 milyuun 1,700 oo milyan ay muslimiintu marayaan macnaha 2 bilyan bay qarka u saaran yihiin waxaasoo dhani taariikh bay leeday xaaladay soo martay xilliyay soo martay xaalada adag iyo qaar dabacsan waynaad barataa cala laqal haddaanad qalin iyo buuq qaadanayn waa inaad u qaadato cilmi dhagood waa inaad ka ag dhawaataa waa inaanad jaahil ka noqonin ka dhagala diintani say u soo hana qaate waxaa ka mid ah inaad ogaato jihaadkii loo soo galay in nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dagaallo badan u soo galay oo aanu isagu abuurin ee lagu khasbay dagaallo ayuu galay qaarkood dhiiggiisa lagu daadiyey qaar baa lagu dakray oo seef madaxa lagala helay haddaan koofiyad biradu ka qaban qaar baa fooloshiisa lagu jabiyey qaar baa misigta wax laga yeelay xaalado badan buu soo maray intaasoo goorbaa waxaa la isku dayey in la ikhtiyaalo oo lagu sameeyo gaadmo lagu dilo ilaahay waa ka bixiyey subxaana waxaad ogaan karaysaa markaa gaala siday u necab yihiin siday u diidan yihiin inay diintani bullaasho horu marto heer gaadho siday ugu taagan yihiin ay doonayna cagta hoosteeda geliyaan dhacdooyinka agagaarkaa ka dhacaya iyo gaala muslimiin laynaysa iyo cadaawad ay muujinayaan iyo ciqaabay ciqaabayaan qariibsan maysid haddaad taqaano siirada waayo wax soo jireena oo la yaqaana weeye laakiin waxaa qariibsanaya qofka aan aqoon ka beenta loo sheegay la yidhi innagii gaala walaalaynu nahay insaan baynu isku nahay bini aadan adduun baynu ku wada noolaanaynaa gacmahaynu isqabsanaynaa waa waxaan la eegayn waa waxaan dhacayn waayo gaalo raalli kaa noqon maayaan rabbi baa sheegay walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica millatahum marka baaraka allah fiikum sifada koobaad ama aadaabta koobaad waa in nabigeenna baranno oynu rumayno aynu ku takhasusno aqoonteenna aynu u leenay inaynu siyaadino ilahay waxaan weydiisanaynaa kuwa diintooda ka dhab sheega allah inaga yeelo dariiqa aynu ku baaqayna wanaagsanna kuwii fuliya allah inaga yeelo subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastaghfiruka wanatuubu ilayk